warna dhagaysta waryaada waa un qaylisaane adigoona canaanan hortana salaam war idin salaami maayna dhagaysta war salaambaha ninka dhahayna dhagansiyoonay warnima noo dhahay war dhagaysta oo dhugu yeesha waanada ninku weydin la hadlayaaye maxamuud sabriya qarafaan allah u naxariista haddaan ka hor wuxuu yidhi warkaagu waa tumburiyo ku dhukayso marka salaantaada ma rabee warkayga dheganso waa tumburiyo ku dhukayo yeelina mayno haye waa idin salaamay dhagaysta hadda dadka qaylinaayo dalka joogi jirayow intii dibadda aadoo dawlada ajnabi diiwaan galsheen oo darajiya xel helay baa duulaan ku timide daafaca xaqiinna heeqash tubta dulmigaad berigoo dhan la haraahiraysa ma intaasow ahaay war dulmi maahana diyaas barada la iska celiyuu ku yidhi dabka habe war dagonka kana dayuus bar hal diray hoobaad eerti dalka ay dhidhisade war kuwii dalka jooga hadday dumiyeen kuwii dibadda ka yimid yaa ka mudan hore dhahay dal joog iyo dibad joog way isku mid dalkayna wada leeyihiin oo ma kala maarantee waxaan aad uga xumaaday maanta wariyaha dhuusamareeb lagu xukumay oo la yidhi maxkamad militari ah xukuntay yaa maxkamad militari hadday xukunta tii booliskuna waa u dhimanta heeday war isma waalintan iska badiin wariyaha dilliiri wariyaha haqdhoor muskuartaana wal kala isan tabar hay haytan bama raga war ma hay sida wariyuu wariyii raadiyo kulmiyo ahaa waana shacab maxaa ka quseeya maxkamad ciidan qof shacaba warwariyayaasha raadiyo kulmiye kuwa xamar joogo 24 saac warka daldalayaba lama xidhe maxaa ku dhuusamareeb laga rabaa aryaadhaha xiriga wariyaha ururadii saxaafadda oo dhanaa cambaareeya cambaarna dawaa ka adag oo boomaataa layska marshaa war raadiyaha kulmiye isin sheegasan ya mayka dhagansii jiray cambaareen adow kaama celiso geeka agaasimije raadiyo kulmiye agaasimije yalle ilaahay hadduu ku roon yahay waan cambaaraynayna falkaas warwariyaasha ahlusuna xirxiri jirtay midkaan galmudug baa xirtay mise ayagaa xiray war maxkamad militariya la saaraa la wariyaha meelaan dawladu ka jirin miyaa militari jooga warnimayo aniga waan yaabanahay maamul goboleedyada Geedland mid waliba maxkamad militari ayaa xukun fulisay bay leeyihiin marka militari iyo maamul goboleed maxaa iska galay warnimayo General Dumaal baan xal dhageystay oo ka hadlay wiilkii iyo gabadhii bariyahan bulshadu hadal haysay wuxuu yiri arrinta waa la siyaasaday dhulka hal la dhigo barnaamijkaas dhaqan la'aan reer Soomaaliyeed ma dhismo dhibkii dhacay hal la xalliyo markaas kadib guur laga hadli karaa war Dumaal wuxuu yiri wixii dhacay markii la dhaqo kadib gabadhan godob reeb baa loo bixin karaa mid kalena waa lagu darin karaa aryaa Dumaal wuxuu yiri ana dhagansadee maqal gabartan ya igaarkaad iska daba rooraya aroos qarana loo dhigaa la leeyahay horta qaranka ay u qabteen labadii qoysay ka dhasheenayba fidna u soo hooyeen war heesa dhagansidii in yaable maylahayd heesta kasaasana ebermiya dadkii joogay ebermiya aryaa saas maahan aniga iga dhaganso ewermiya dadkii joogi ewermiya warnimayo waayabe heestan awaan ka saweeyay haween wanaagsan waa ni salaami warna dhagansidana miyaw niin boobtana awad wasiirka arrimaha dibadda qaramada midoobe ku qudbay kuraastiyo ewer waan qudbay horta ha uga fan abad ma waa awad kuraastuna ewer ma hayna eberay ee qudbadiisa ma dhagansadeen war xitaa madaxda kala tagay nimayo qudbada way duuban tahay keedka qaramada midoobe ku jirta wareeda madaxweynuhu hadduu tagi lahaa waa la dhagaysan lahaa maxaa wasiir afrikaan oo Soomaaliya waliba laga dhagaysanaya madaxweynaha meelo kale hore ka soo jiray qaramada midoobe ma indiidi aryaadaha war ma haysiin xisbigii daljir waa la kala diray laakiin waxaan maqlay xisbi weyn oo mucaaradku ku midaysan yihiin in la sameeyo war mucaarad ma taqaanida mucaarad ma midoobo naga waligeen ahaan jirno mucaaradkaan dhaqaan dhagayso aad ku dheefta mugga daljir iyoonay duurjir weliba midowna war xisbigii weynaa ilaaha weynaa nabad inoo ku biri rabaan war baarlamaanka heer hoosaadkiisii muran xun baa ka taagan baa la yidhi shalana sakariyo gabiyey wuxuu yidhi nin dharbaxay quuraad dhugsaday dhaqayadeed maalye dhashaaday sugtaa xaajadaa dhowrataa ebede marka wuxuu yidhi waxaan la soo doodhoobay dad baa ku danaysanaya dan guud maaha xeerka ba marka xildhibaanadu mooshin ka keenayaan madaxweynaha waxay ku hor saxiixayaan xogayaha guud ee golaha shacabka xeerka wuxuu leeyahay ka yeeli mayno cad wartaad ka boodayay waxay qoraysaa nin tuurli siduu u seexda asaga yaqaan taqada naftirkeer xeer hoosaadkeera wuxuu dhigaa ninkii tuurle kii tulux lahay tala wadaagaane wareeda xeer hoosaadka ma sidii dastuurkii baa la qabya tiri laayahay isagana war gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir ma ertay
gabroowi wal afduubado hayerti hoteelo gabdhalo kala dhuumadaa wal dhisiyerti war maanta wiil bajaaj lagu afduubtay la qabtay nimanyo ayaantaana ilmaha yaryar iyo gabdhaha waa la afduubtaa yaa afduuba awalay dalka haysatee xaa dheeraada war canug yarow ahaa midka hooyadiis isbitaalka uga dhuumatay maalintay dhashay maalintii ka dambaysay u gambiday walowga gambis ku dhashaan u filaa cunugaas warnimada Soomaaliland war yaab laha ka soo yeeray nooga yaabi waxay yiraahdeen ra'iisul wasaare Abi Ahmed hanna dhexdhexaadiyo annaga Soomaaliya gaalba hawshay kooy gurbi ku urday waa dheegi jari yaama Itoobiya bariga hanna faragelisay la yimideen war maamul goboleedyadu weligood bay Itoobiya u soo horti jireen war lanki guntiisi gaal jaydiid gaali waalsadee waa dheeri war gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineeriso wuxuu yiraahday xuduudda Muqdisho waa inay noqoto afgo iyo balcad war jidka soddonka leebi koogaayna ama heganti laabeen yaa degmooyinka Muqdisho qaar kamid ahaanba waaga la tagi karina tan balcadna shimaal loo gudbay war ninkii xaawada guramiyaada maqale inta qaadi waayay mid kale ku biirsaday ariya nin ma hayna taasoo habaray ahayd aflagaadada jooji wariyaa war insiba ma hayna jiniyahay wala wariyaha iga faadaa jinni iyo wax ka xun ah war ani yeer kortay wariyaa waalida ku cunta deerta wariyaa jeega xun qaade